هذي نعود على متوسي كرتو واسعونه ساس يلي هر يابين هذي ميل ساحد كما كعي كرتو قرح هذي ساحد كما كعي كرتو waxaan u hayaa lama arko saas afartan yeeli meel kama aadi karo ma shaqay karo dal waa agoon abid waa dhintay qof inay caawiyo awoodin waxaan ka codsanayaa inuu muuqaalka ishal gareeyo oo meel dheer ii gaarsiiyo waan hubaa haddii muuqaalkani ku soo gaaro aadna leedahay damiir Soomaalinimo in aad hooyadan caawi doonto ama si aad muuqaalkeeda u sheer gareyn doonto sida iyaduba ka codsanayso hooyo Nuur Yuusuf waxa ka xanuunsanaya gabadhan idin muuqata muddo dhan 15 sano waana gabadhii curadeeda ahayd ilmaheeda oo ka kooban 7 canug oo wada agoomo waa abuud waa u dhintay Allah u naxariistee ma haystaan hooyo mooyee cid kale u shaqaysa hooyo Nuur oo ah qof iska danyar ah waxa ay la daalaa korinta caruurteeda intaana waxa u dheer gabadhii curadeeda ahayd oo ka xanuunsan sida aad arkaysaan mararka qaar waxa la kala celinayaa iyada iyo jirkeeda oo way iscunaysaa ama se haddii aan si kale u dhaho jirkeeda ay qaniinaysaa hooyo Nuur ma haysato maanta dhaqaale ay goob caafimaad ku geysato ama se ay ku xanaalaysato gabadheeda oo waxay ka codsanaysaa garab istaag ani ahaan waxaan ka codsanayaa in muuqaalkeeda bilow ilaa dhamaad aad si degan u daawato waxa la yiraahdaa Nuur Yuusuf Harable gabadhan waa iga jirantahay ilaa 15 sano waa iga jiraneed ilaa 15 kaasna dhakhtar maana geyn dhakhtar waxaan ku geeyay maana hayn hadda tan waa iga goontooda waan waaye awal horna abida quraan saa jira sadin waa dhintay 15 sano jirta waxaan u bixin mahay afaad waxaan u bixin mahay wada xanuunsan tahay dhakhtar waxaan geeyay waa way hadda waxaan rasuul ugu daran dhakhtar igu darana geeyo dhakhtar waxaan geeyay ma haysto meel aan awoodo ilaa inta ay jirneen dhakhtar waan geeyay waxaan ku geeyay waaye marka aniga warso way ku dhacay sidoo kuma dhalan laakiin iyada waxa roonay jirtay waxaan u malaynaa in neerba inay tahay dhakhtarna ma aana geey waxaan u geeyay dhakhtar ma aana haysan waan dabcan geey laakiin aan geey waaye hadda dadba cunugay weyn tahay oo agoon iga ah iyada weyn iyaduna iga jiran tahay marka aniga war Soomaaliyeed ahay dadku waxaan ka codsanayaa wixii islaam wixii muslim wixii heli karaan ay macnaha igu caawiyaan afaad waxaan u baxsho waxaan caano ku siiyo waxaan macnaha dhakhtar ku geeyo wixii awood inay macnaha ii qabtaan saas ilaahan ka badka ka bariya Soomaalida 15 sano jirta 15 kaas way jirnay iyadoo jirta 6 bilood jirtay ilaa xilligan way jirtay 15 sano dadan jirta dhakhtar lama geeyin meel la geeyay lama arko meel la geeyay ma jirto waxaan geeyay ma aan hayo afaad waxaan u baxsho ma hayo intaas tabarta ay diiday hadii dhinac u dhacdo ma toosi karto waa iscune saas yeeli har yaabin hadii meel saaxad kama kici karto qarax hadii saaxad kama kici karto hadii meel kale la geeyo ma kici karto duurka ma aadi karto afaad 4 saac loo xiraa waxaan u hayaa lama arko saas 4 saac yeeli meel kama aadi karo ma shaqay karo dal waa agoon abid waa dhintay cunto aan bis la siiyo cunto afu masaar أنا بس على سيا أنا هاسين لو قدر ربطان على سيا ربطة ميل ما يكرتو ميل أنا بعبي كرتو ميل ما يكرتو أنا ميل كم أدي كرو ما شقي كرو أنا هاي أفراد ساعة هو خلا أنا دروا هاي أنتو بي مركب حان ربا يحيي مسلمين يحيي قتري كان يحيي قتران هو يسمع عليه أنا هاي هو اللي حاوكي على حسن اللي هذا يحيي مركب مسلمين ويحيي قتري كان معنا ويحيي سكران سيان نقدر حن جوجي يقدر نقدر اللي يجي ساسا أنا ذاك عصنايا ولا Soomaaliyeed qofkii macnaha caawi kara wuxuu la soo xiriira lambarkii waxa way 62 ayay la soo xiriiri karaan qofkii inuu caawiyo awoodin waxaan ka codsanayaa inuu muuqaalka ishal gareeyo oo meel dheer ii gaarsiiyo ayaan ka codsanayaa